kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ugu yaboohay dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya inay siinayaan taageero military haddii ay u baahato ayaa waxa arintaasi si daran uga carooday wadamada Khaliijka Carabta, Masar, Greega iyo Yuhuudda. dowladda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli ayaa aqbashay codsigii madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ee ahaa in Turkigu siiyo taageero military. wadanka Greega oo colaadi kala dhaxaysa Turkiga ayaa saacado kooban u qabtay safiirkii u fadhiyay Tripoli inuu kaga soo baxo dalka Liibiya. sidoo kale jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqday ra'iisul wasaaraha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli Faiz Siraaji inuu joojiyo wada shaqaynta iyo taageerada uu la leeyahay wadanka Turkiga. xaaladda ayaan weli deganayn iyadoo laga warsugayo in Liibiya ay si degdeg ah u gaaraan ciidamada militariga ee wadanka Turkiga halkaasi ay u daabulayaan si ay u difaacaan dowladda caalamka aqoonsan yahay oo weerar kala kulmaysa generaalka ay taageeraan Khaliijka Carabta ee Khalifa Haftar. dhinaca kale wararka laga helayo magaalada Benghazi ee uu maamulo generaalkan falaagada ah ayaa sheegaya in ay ciidamadiisu soo afduubeen markab dowladda Turkigu ay leedahay oo xeebaha Liibiya soo galay.